in gobolladii ku midoobay dhistaanka Puntland 1998 ay qaar ka mid ah aysan gacanta ugu jirin maamulka qaarkoodna ay sameysteen maamul u gaar ah waxay kala furfurashadaas Puntland sabab uga dhigayeen maamul xumo iyo aragti la'aanta hoggaanka sare ee Puntland طبعا waxay ka mid tahay misaan sheegay mandate-ka dawladda way ugu horeysaa markii aan soo dhiso kabinetka muddo 12 bari gudahood ah ama dawladda aan soo dhisno waxa ugu horeeyo oo aan talaabooyinkan qaadayno ayay noogu weyn tahay dimuqraasiyadda iyo dadka in la gaarsiiyo inay ayagu codkooda wax u iibiyo qofku inuu isagu matalo yani rabitaankiisa masiirkiisa oo dalka uu ku darsado taladiisa oo marka uu codeeyo qofka uu rabo waa laga maarmaan waa muhiim waana dawladdeedu wax noqonaysa faashil hadii taasi aysan dhicin hadii la yiraahdo